xeerka golaha guurtida haatan maraya ee soo dhaafay golaha wakiiladu maaha xeer xakamayn kara tacadiyada haweenka iyo marmarka qaar dhinamada ay ku dhacdaba xakamaynaya. sidoo kale waa xeer dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baalmarsan, waa xeer shareecada islaamka ka hor imanaya. haddaan midhiya laba ka taabto anigoo soo koobaya, haddaad eegta isla xeerka qodobka 34aad ee cadaymaha ka hadla in qofku markuu la kufsado cadayn loo helo waa 4 marag oo arkay toosu arkay markaas falkaasi dhacay, taasoo aan inaba macquul ahayn sababtoo ah kufsigu kama dhaco meelo 4 marag laga heli karo, kama dhaco kufsigu. taa waynu wada ognahay. wuxuu leeyahay qodobka 31aad qofka dhibanta ah wuxuu qabsanayaa qareen difaaca. qofka dhibanta waxaan ognahay xafiiska xeerlaalintu matalaan ma xafiiskii xeerlaalinta iyo qareenadiiba isku dhinac maraya oo qofkii wada difaacaya. marka qodobkaasoo kale wuxuu odhanayaa waxa qareen buu qofkii qabsanaya, marka qofkii jahwareer baa ku dhacaya. waxa halkaa ka dhalanaysa xitaa inay qareenadiina ay yidhaahdaan dacwadii awood sharci baan u leenahay, waanu gelaynaa kufsiga ahayd oo dhibantaanu matalaynaa. xafiiskii xeerlaantana sidoo kale 43 qodob ee uu ka kooban yahay, qodob walbo dul istaaga wuxuu leeyahay ceebo gaar oo ama qodob sharci ka hor imanaya ama ka hor imanaya shareecada islaamiga ama ka hor imanaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland.